filimku wuxuu ku bilaabanayaa iyadoo la tusayo koox dhalinyaro ah kuwaas oo mukhaadaraad ku dhex cabaya guri dhexdiisa. Si kastaba ahaatee booliska ayaa daba socday iyagoo aan ogeyn waxayna ku sugayaan guriga banaankiisa maadaama gurigu uu aad u weyn yahay. baarahan Fulbright oo hogaaminaya markaa booliskan ayaa laba ka mid ah booliskiisa wuxuu ku amrayaa inay guriga ka galaan qaybta dambe. hogaamiyaha iyo askari kale oo lagu magacaabo Larry iyaguna waa inay guriga ka galaan qaybta hore. labadii askari oo loo xilsaaray qaybta dambe markay soo galeen waxa u suurta gashay inay dilaan laba dhalinyaro ah iyagoo mid ka mid ah ay u suurta gashay inuu daaqada ka baxsado. baarihii Fulbright ayaa isna ka soo galay albaabka hore. waxa u suurta gashay inay dilaan hal wiil oo dhalinyaro ah waxayna sidoo kale xireen wiil isna dhalinyaro ah kaasoo lagu magacaabo Kale. si kastaba ahaatee kadib markay hubiyaan ciwaanka guriga boolisku waxay garwaaqsadeen in ciwaan khaldan uu gurigan ku yaalo. waxayna ogaadeen in labadii dhalinyarada ahaa ee markii hore ay dileen aysan ahayn bartilmaamoodkooda oo wax darooga ah aan laga helin markaa meeshii joogeen. laakiin baarihii Fulbright ma uusan dareemin inuu dambi sameeyey sababtoo wuxuu ku andacoonayaa in labada ninba ay wateen qoryo. Kale iyo ninkii dhalinyarada ahaa ee la dilay ayaa lagu eedeeyay inay ka ganacsanayeen daroogadan. isla mar ahaantaana Kale ayaa xabsiga lagu tuuray. warkaas ayaa isla mar ahaantaaba gaaray warbaahinta waxaana warkii laga soo daayay TV kasta. dhan kale nin lagu magacaabo Roland ayaa la arkayay isagoo daawanaya warka weerarka kaasoo markaa telefishinka ka socda. Roland wuxuu noqday aabaha labadii dhalinyarada ahaa ee midna la dilay midna xabsiga lagu tuuray. wuxuuna u muuqdaa mid murugaysan markuu maqlay in wiilashiisii mid ka midna la dilay sidoo kalena mid ka mid uu xiran yahay. wax yar kadib laba sarkaal ayaa imaanaya gurigii Roland waxayna rabaan inay saldhigga u kaxeeyaan si wax looga weydiiyo kiiska labadiisii wiil. Roland oo isu bedelay haliyey ayaa isla markiiba dilaya labadii nin ee booliska ahaa sababtoo ma uusan aqbalin habdhaqanka sharci darrada ah ee kula kaceen boolisku labadiisii wiil. muuqaalka ayaa markaa u wareegaya nin lagu magacaabo Mark wuxuuna hurdada ka soo toosay isagoo sirqaansan. Mark hore wuxuu uga tirsanaan jiray ciidamada gaarka kadib markuu hurdada ka tooso wuxuu si toos ah u aadayaa shaqadiisii. Mark waa alxanle wuxuuna ka shaqeeyaa xarunta korontada ee biyaha laga dhaliyo. markuu goobta yimid waxa si diiran u soo dhaweynaysaa xaaskii Fulbright oo lagu magacaabo Bala. taas kadib Mark wuxuu u muuqdaa mid ka masiirsan markuu arko saaxiibtiisii hore taasoo lagu magacaabo Safia. waxayna markaa la socotay nin lagu magacaabo Smith kaasoo ah agaasimaha shirkaddan uu Mark ka shaqeeyo. markuu xafiiska soo galay Mark isla markiiba wuxuu ku majaajilooday mid ka mid ah saaxiibadiisa kaasoo lagu magacaabo Tommy sababtoo Mark si sahal ayuu markaa u sirqaansan yahay. inkastoo xalinimadii uu khamri badan cabay balse weli jirkiisa kama bixin markaa khamrigii. mid ka mid ah qaybta nabad sugidda oo lagu magacaabo Bon ayaa u sheegaya Mark inuu aado guriga maadaama uu sirqaansan yahay waa inuu fasax qaato oo iska nasto maanta. si kastaba ahaatee Mark wuxuu ku adkaysanayaa inuu shaqeeyo. sidaa darteed Bon wuxuu u muuqdaa mid ka niyad jabsan. keligii maaha nin kaloo isna lagu magacaabo Cranbrook kaasoo ah madaxa amniga ayaa isna ku xumaaday markuu ogaaday in Mark uu weli joogo shaqada. maalinimadaas waxay isla taagan yihiin gabar lagu magacaabo Amy waxayna u muuqdaan kuwo si caadi ah isaga sheekaysanaya ka hor inta aysan Safia imaan oo khalkhal gelin jawgooda. Mark iyo Safia ayaa waxa dhex maraya muran tiro badan. ogsoonoona Safia waa egistiisii iyagoo wada murmaya waxa uu imaanaya Smith oo markaa dejinaya. intaa kadib waxaa la arkayay dhammaan shaqaalihii oo qabanaya dhammaan howlahooda shaqo. dhan kale isla goobta waxaa soo gaaray koox ardaya kuwaas oo u socda dugsigoodii waxaana loo xilsaaray in Safia ay hagto. isla markaaba waxaa soo muuqday dhowr baabuur oo isla markiiba jiiray xayndaabka istabta ama meesha baabuurta la istaajiyo intaysan magaalada soo gelin hadba saa u taqaanid. sarkaalkii ilaalinayay iridda hore ayaa isla markiiba wargelinaya Cranbrook laakiin waxaa la yaab leh in Cranbrook uusan ka jawaabin wicitaankiisa. taas beddelkeedana uu laayay raggii ka agdhowaa. sidoo kale Bon wuxuu laayay dhammaan dadkii la shaqaynayay waxaana soo baxday in Bon iyo Cranbrook ay la shaqeeyaan Roland. haddaad xasuusatid Roland waa ninkii labadiisa wiil midna la dilay midna la xiray wuxuuna dhinaca u soo maray si uu argoosto wuxuuna damacsan yahay inuu afgambiyo oo uu la wareego warshadan. Roland iyo raggiisii waxay sidoo kale qabanayaan ardadii iyo shaqaalihii loo xilsaaray iyagoo og in gaadma jirto. Smith iyo Bala oo joogay warshadda ayaa bilaabaya inay dhuuntaan waxayna sidoo kale wacayaan booliska. isla mar ahaantaana waxaa soo gelaya Bon wuxuuna xirayaa Smith iyo Bala. dhan kale Mark oo ka shaqaynaya hagaajinta bir jabtay taasoo ku taala biyo xireenka ayaa ogaanaya inay wax dhaceen markuu arko ninuusan garanayn oo qorisita. Mark oo horey askari u ahaan jiray ayaa si fudud ninkii u soo dejinaya kadibna garaacaya. meel kale Roland wuxuu amar ku bixinayaa in loo keeno Smith. Roland ayaa markaa Smith ku qasbaya inuu furo biyo xireenkan. markuu taa maqlay Smith isla markiiba wuu diiday sababtoo waxay halis ku tahay dadka meeshan degan. Roland ayaa wuxuu bilaabayaa inuu hanjabo Smith
ismiidna doorasho kale ma haysto aan ahayn inuu aqbalo balse wuxuu bilaabayaa inuu isna u hanjabo dhammaan shaqaalihii meesha wuxuuna u sheegay inuu hafinayo haddii cid ku dhiirato inay ka hor timaado intaa kadibna Roland wuxuu helayaa war ku saabsan in dhowr ka mid ah saaxiibadiisa uu dilay nin lagu magacaabo Mac si kastaba ahaatee Bon oo ogaa xogta Mac ayaa u sheegay Roland in Mac uu ka mid ahaan jiray ciidamada gaarka ah markuu arrintaa maqlay Roland wuxuu amar ku bixinayaa in la soo qabto Mac dhan kale Mac oo doonaya inuu ku dhoonto qol ayaa si lama filaan wuxuu la kulmayaa Tommy oo isna weli goobta aan ka tegin marka hore Tommy wuxuu u sheegayaa in shaqaalihii iyo ardadiiba la afduubtay balse uusan garanaynin sababta loo afduubtay isla mar ahaantaana Mac iyo Tommy waxay ka soo baxayaan dhoomashada isla markiibana waxa ka hor yimid koox ka mid ah saaxiibadii Roland waxayna isdhaafsadeen rasaas tiro badan dhan kale Roland wuxuu la kulmayaa Bala wuxuuna ka codsanayaa inay wacdo ninkeedii Fulbright si uu yimaado meeshan sababtoo hadda ka hor isaga hogaaminayay weerarkii wiilashiisa lagu qaaday markii ugu dambeyntii Fulbright uu yimid qaybtii warshada isla markaaba waa la hareereeyay oo waxa qabtay raggii Roland waxayna u geeyeen Roland markii Fulbright uu ogaaday in Roland uu yahay Kyle aabihiis ayuu ka raali gelinayaa wax kasta wiilashiisa ku dhacay uuna u sheegayaa inay ahaayeen shil Fulbright ayaa isla markaa soo bixinaya xoogaa lacaga oo doonayo inuu raali gelin ahaan u siiyo balse Roland wax lacaga ma xiisaynayo sababtoo yoolkiisa ugu weyni waa inuu ka argoosto Roland ayaa isla markaaba Fulbright ku dilaya xaaskiisa hortiisa Buyol ayaa aad u naxday waxayna ku dhagan tahay meydka ninkeeda isla markaana Roland wuxuu askartiisa ku amrayaa in Fulbright meydkiisa ay ka tuuraan biyo xireenka dhan kale Mac iyo Tommy waxay wadaan qorshe ay ku soo furanayaan la haystayaasha Mac wuxuu u sheegayaa Tommy inuu aado dhanka baska halka Macna uu raadinayo la haystayaasha kadib wuxuu dilayaa dhowr nin oo Roland raggiisa ah wuxuuna ugu dambeyntii helayaa Safiya iyo la haystayaashii kale isagoo ka codsaday inay si degdeg ah uga baxaan meeshan oo ay raacaan baska waxaana ka haynaya Tommy Safiya ayaa markii hore diiday sababtoo waxay dareemaysaa kalsooni darro laakiin Mac ayaa u xaqiijiyay in joogitaanka halkan ay naftooda halis ku tahay markuu ugu dambeyntii kaxeeyay la haystayaashii Mac wuxuu la yaabay imaatika Safiya oo sida muuqata doonaysa inay la joogto Mac Safiya ayaa markaa kula talinaysa Mac inuu aado Cranbrook oo ahaa madaxa amniga ee warshada waxay u malaynaysaa inuusan Cranbrook uusan ku lug lahayn afduubkan isagoo og imaatika Mac Cranbrook waxa u diyaarsan qorigiisa laakiin sida muuqata Mac wuu ka shakiyay in Cranbrook uu ku lug leeyahay afduubka waxaana isla markaa bilaabayaa inuu toogto oo uu dilo Cranbrook Roland wuxuu ku amrayaa askartiisa inay ka haystaan Amy sababtoo waxa soo baxday in Amy ay tahay Larry walaashi ka yar Larry waa askari boolisa kaasoo la socday weerarkii lagu qaaday wiilashii Roland marka Amy ay ogaato dambiyada uu ka galay Roland waxay bilaabaysaa inay raali gelin ka bixiso Roland wuxuu u muuqdaa mid qadarinaya daacadnimadeeda isla markaana wuxuu ka codsanayaa inay wacdo Larry oo ah walaalkeed si uu yimaado goobtan baskii uu waday Tommy ayaa ugu dambeyntii yimid saldhigga booliska Tommy ayaa isla markaa u sheegaya waxa ku dhacay Larry iyo sarkaal kale oo meesha taagna oo lagu magacaabo Sain Larry isagoo og waxa meesha ka dhacay wuxuu ku adkaysanayaa inuu keligii aado warshada mana doonayo inuu halis geliyo badbaadada walaashii dhan kale Sain isla markiiba waxa xidhay NSI wuxuuna ku wargelinayaa afduubka ka dhacay warshada iyagoo taa og NSI isla markiiba shir degdega ay qabanayaan waxaana ka wada hadlayaan sidii loo samata bixin lahaa la haystayaashan iyo inay la dagaalamaan afduubayaashan warshada haysta Mac waxaa la arkay isagoo dhex maraya xarunta warshada wuxuuna la kulmay mid ka mid ah gacan yarayaashii Roland oo lagu magacaabo Gator kaasoo noqday saaxiibkiisii hore ee Mac markii Mac uu ka tirsanaa ciidamada gaarka ah isla mar ahaantaana Mac iyo Gator dagaal ayaa dhex maray laakiin dhammaadkii Mac wuxuu dilay Gator dhan kale Larry oo yimid warshada korontada ayaa isla markiiba la qabtay oo la garaacay Roland wuxuu ku qasbay inuu qirto dambiga laakiin Larry wuu diiday inuu qirto Roland muxuu samaynayaa oo kale wuu dilay Bon ayaa ku wargelinaya Roland in ciidamada militarigu ay soo socdaan oo ay dhankooda ku soo wajahan yihiin isagoo tan maqlay Roland wuxuu amrayaa Smith inuu furo biyo xireen kale marka heerka biyuhu kor u kacaan Roland wuxuu qorsheynayaa inuu kaga tago meesha si ay ugu qorqoomaan la haystayaashani si kastaba ahaatee Bon wuu diiday qorshahan wuxuuna weydiistay inuu soo afjaro waxan oo dhan isagoo aad uga cadhooday erayadan Bon Roland wuxuu bilaabayaa inuu dilo waqti dheer kama soo wareegin isla markaaba ciidamadii ayaa soo gelaya waxayna weerar gaadma ah ku soo qaadayaan xarunta korontada kadib waxay dilayaan askartii ilaalada ahayd ee banaanka joogtay Mac ayaa isna markaa ka codsanaya Safiya inay xidho biyo xidheenka inta uu raadinayo halka Roland uu ku sugan yahay intaa kadib Mac ugu dambeyntii wuxuu imaanayaa goobtii Roland uu joogay iyagoo ay la joogaan askartii militariga ahayd
maak ayaa markaa Roland weydiinaya inuu isdhiibo laakiin Roland wuu diiday inuu isdhiibo saadarteed askartii ayaa waxay bilaabaysaa inay toogtaan dhamaadka filimkana 2 toddobaad ayaa ka soo wareegatay dhacdadan waxaana sidii caadiga ahayd ku soo noqotay dhaqdhaqaaqa warshada maak ayaa hadda loo dilacsiiyay madaxa amniga wuxuuna dib u jeclaaday Safiya iyagoo qorsheynaya inay isguursadaan filimkiina saas ayuu markaa ku dhamaaday haddii markaad xiisisid muuqaalada noocan oo kale ah fadlan channelka subscribe saaro sidoo kale muuqaalkan like garee si markaa dad badan u gaaro waana kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan intaan muuqaalka xig ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh